with Asma kusoo dhawaada videogeeni labaad oo aan maanta kusoo bandhigi doono insha allahu tacaala sida aad u bilaabi kartid farsamada gacanta ee crochet-ga. Farsamada gacanta ee crochet-ga waxaan kaga soo hadlay videogii hore, videogeeni koobaad, waxyaabaha u baahantahay wuxuu ka kooban yahay wuxuu lagu sameyn karo. Marka waxaad ka heli kartaa channelka dib ugu noqon kartaa ama halka hoose ayaan kuugu soo dhigayaa linkigiisa si aad ugu noqotid, xagga sarena wuu kuugu soo baxayaa. Videogan maanta waxaan insha Allah kaga hadli doonaa sida aad u bilaabi kartid. Insha Allah waan soo koobeynaa. Waxaan ku bilaabi doonaa waxyaabaha la dhaho qurzada. Qurzada sidaan hore usoo sheegay waxa weeyaan dunta marka la tolayo ama marka la bilaabayo shaqadeeda, yacni qaabka loo sameynayo way kala duwan yihiin, noocyo fara badan bay leeyihiin, laakiin kuwa basic ah baan insha allahu tacaala bilaabi doonaa. Ta ugu horeysa ee aan maanta insha allahu tacaala soo bandhigi doono waxaa la dhahaa silsilada ama qurzati silsila. Af carabi qurzati silsila lagu dhahaa, af ingiriisi waxaa lagu dhahaa chain stitch. Patronka ama musawirkiisa markuu qoran yahay iyo marka calaamada looga jeedo, calaamada loo isticmaalo labadaba waan idiin soo raacinayaa. Hadda imika waa sawirka idiin soo bixi doona. Marka haddii aan bilowno, bismillahi raxmaani raxiim. Maanta waxaan haysanaa xadhiga clean. Qof kastaaba haddii uu maqlay khaytal clean, khaydka la dhaho waxa weeyaan wuxuu ka samaysan yahay funaanad, maryahan funaanadaha ah ama injirka ah oo kale. Sidaan hore usoo sheegayna wuxuu ku kala duwan yahay ama waxa laga sameeyey ama wuxuu ku kala duwan yihiin weliba ballaarhkooda kale, waxyaabo dambe ku kala duwan yihiin. Marka maanta kan aan ku sameyn doono insha allahu tacaala. Irbadda aan ku shaqeynayaana waxa weeyaan lambar 6. Marka aan bilowno, bismillahi raxmaani raxiim. Qurzada silsiladu waa qurzada basic u ah shaqadan crochet-ga. Marka waana ta ugu fudud runtii qofku barto, wax badan kaama qaadanayso. Marka insha Allah bismillahi raxmaani raxiim aan bilowno. Marka ugu horeysa sidii aan idiin sheegay, marka aad bilaabaysid, marka ugu horeysa dunta waxaad sameynaysaa halkan waad ka gubaysaa. Siib ahaan haddii ay tahay duntan ka samaysan suufka ama kotonka oo kale ee furfurmata ama fagmata. Marka si aad fagitaankaas isaga daysid, waxaad samaysaa letter baad ku qabanaysaa ama dab yar, wax yar baad ka gubaysaa halkaas si aanay uga furfurman ama uga furfurman. Kadib in yar qiyaastii ah ilaa 7 ama 10 centimeter meelahaas ayaad ka tegaysaa ama aad dhaafaysa, waad ka boodaysaa intaa. Waxaad ka bilaabaysaa guntiimadii baad bilaabaysaa inaad yacni dunta xidhid si aanay hadhow toona kaaga furman ama meel aad ka gunudid. Yacni dunta caadiga ah ee aan wax ku tolayno marka aan irbada gelino halka ugu dambeysa waa laga guntaa si aad maradii dee markaad aad kusoo tushid aanay halka dambe kaaga soo furman ama aanay kaaga soo bixin. Sidoo kale tanna waxaad sameynaysaa waad guntaysaa si aanay kaaga furmanin oo kadibna ugu sii shaqaysid. Marka aad guntaysid waxaad sameynaysaa in yar baad ka tegaysaa. Markaad ka tagtid labadaada farood gacmahaaga saas aad dhexaysa saa labada farood dhinacaas isu raaca, labadan waad soo laabaysaa. Suulkana gooni bay iyadu isaga taagnaanaysaa. Marka waxaad samaysaa labada farood saasaad ugu qabanaysaa. Waa ka xadhigii. Waxaad sameynaysaa marka tan gacantaadana kusoo qabanaysaa, saasaad u keenaysaa, waad kusoo wareejinaysaa. Saasaad ugu soo wareejinaysaa. Markaad kusoo wareejisid, xadhiga dhankiisa yaraa waa kan, dhankiisii badnaana halkaas u xiga. Halkan wuxuu kaaga sameynayaa calaamada X. Waad keenaysaa ilaa halkan saas usoo wareejinaysaa. Saasaad ugu qabanaysaa. Halkan wuxuu kaaga sameynayaa inay 2 xadhig oo isbarbar yaala. Halkan wuxuu kaaga yahay calaamadii X ayuu kaaga sameeyay. Marka waxaad sameynaysaa markay saas oo kale ay tahay, labadaada farood baad saas u kala fogeynaysaa si aad space ay irbadu gasho aad u heshid. Irbada halkaa kasoo gelinaysaa hoosta ka koobaad
irbada afkeedii waa kaa halka hoos u xiga, then waxaad kusoo jiidaysaa xarigan kale waad kasoo dhex saaraysaa. marka waxaa kuu samaysmatay goobo. xarigii yaraa waa kan, xarigii weynaana dhinacaas u xiga, goobadaasaa kuu samaysmaysa markaa. waana goobada hadhowta waad ka xidhaysa, saas umaad u geejinaysaa, bas saasuu ku gunsan yahay xarigaasi. hadhowtoole waad bilaabaysaa, waad sii wadaysaa in shaqadaada korbaad usii wadaysaa, laakiin halkan kaama furmayo. haddii aan ku celiyo mar labaad, xarigaad soo qabanaysaa, labadaada farood oo saasa sisid xariga ugu soo wareejinaysaa. halkan wuxuu kaa siinayaa inuu yahay calaamada x, halkan wuxuu kaa siinayaa laba xarigoo isberberyaala inuu yahay. xarigii yaraana waa kan, xarigii dheeraana waa kan dhinaca xiga. marka waxaad samaysaa labadaada farood saas intaad yar kala fogeysid, kanaad halka hoose kasoo gelinaysaa, kanna waad soo jiidaysaa, waad kasoo dhex saaraysaa. gacmahaagad markaa ka saaraysaa, waxaa kuu samaysmatay goobada. marka waad yareynaysaa, adigoo kii yara dhinacan yar jiidaya ayaad yareynaysaa, saasaad ugu xidhaysaa. bas guntiimadaas way kuu samaysmatay. marka halkan waxaa kuu soo baxaya goobadaas uu ku dhex jiro, ay ku dhex jirto irbadu. goobada ay irbadu ku dhex jirto waxaa la dhahaa qursadii koobaad, iyadoo lama xisaabiyo. waa tii shaqadaad ku bilowday, marka wixii intaa ka dambeeya iyadun baad kusii duldhisaysaa shaqadaada. haddaba markaan leenahay qursada silsilada hadday bilaabmaysaa, waxaad sameynaysaa dunta saasaad yani gacantaadana saas ugu qabanaysaa. halkan waxaad ku geejinaysaa labadaada farood, waxaad ku geejinaysaa halkan hoose, si shaqadu yani kugu noqoto mid taagan oo aad haysid, yani aanay ka carcararin kolba. fartaadaasna waxaad ku jiidaysaa ama kor aad ugu qaadaysaa dunta kale si ay kugu geejisanaato iyaduna markastood soo qabanaysid. markaa saasaad ugu qabanaysaa gacmahayga. labadaa dambe iyo waxba ma qabanayaan, iska laaban yihiin. labadana waxaan ku hayaa shaqadii, xabadana waxay haysaa xarigan kolba soo jiidayo. gacantaydan midig waxaan ku hayaa irbadii. irbadu halka hoose eegeysaa, markastaba dhinacnay eegeysaa. waxaan sameynayaa silsilada koobaad, saasaan xariga ugu soo wareejinayaa. way qabsatay, waan soo jiidayaa, waan kasoo dhex saarayaa. waxay noo samaysmatay silsiladii koobaad, waa taa. haddana haan ku celino, xarigii saasaan u kala bixinaynaa, siisaan irbada ugu soo wareejinayaa, waan soo jiidaya, waxaan kasoo dhex saarayaa goobadii markii hore xariga ku samaysnay. tii labaad waa taa samaysmatay. haddana xariga irbada waxa ku jirta waxa u samaysan hadda goobo. goobadaas isagoo ku dhex jirto ayaan xariga saas ugu soo laabayaa irbada, then waan soo jiidayaa xariga, waxaan kasoo dhex saarayaa halkii markii hore kaga jiray goobada. saasaan ugu wadayaa. saas waxaa kuu samaysmaysa silsilad. marka imika waxaan sameynay kow, waxaan sameynay taniskida 1 2 3 irbadood, 3 silsiladood cafwan ayaan sameynay. saasaan wadaynaa 4 5 6 7 8 9 waka silsiladaas ku samaysmaysa. shaqo kastaaba waxay u baahan tahay tiro mucayan ah oo silsilada ah, ama waxaad ka raacaysaa nashqada, ama waxaad qiyaasta haddaad adigu taqaanid, yani adaa qiyaasanaya. laakiin markastaba waxay ku siinaysaa silsilada noocaas u eg, haddii ay waadax tahay. silsilad kastaaba waxay ka kooban tahay, soo dhaweeyo, silsilad kastaaba waxay ka kooban tahay
laba dhinac ay ka kooban tahay kan iyo kan. Marka xarafka waxay sameynaysaa xarafkan la dhaho af ingiriisiga v oo kale amba lambar 7 oo af carabi ah ayay sameynaysaa. yacni waxay u samaysan tahay wax laba geeso saas oo kale korka eegayo kale ayay u samaysan tahay. intaasay ka kooban tahay silsilad kastaaba. silsiladuhu waxa weeyaan ta ugu fudud marka la bilaabayo crochet-ga waana kuwa ugu muhiimsan marka la baranayo, waayo shaqo kastaaba waxay ka bilowmataa silsilada, waanad u baahanaysaa in badan. marka haddii aan mar labaad ku celiyo, aan xadhiga idinka bedelo, waxaan yar dareemaa xadhiga inuu yar weyn yahay. xadhigii baan inaga soo bedelay sababtoo ah xadhiga waxaan yar dareemay xogaa inuu inaga yar weyn yahay. noocan kale aan ku shaqeynaynaa. marka sidii aan idiin sheegay baa asxaabe, marka aa ugu horeysa bilaabaysid waa inaad iska gubtaa si aanu sidaas oo kale kaaga fagmanin. marka waxaan sameynaynaa hadda imika waxaan sameynaynaa halkii laga xidhayay marka ugu horeysa ama guntiimadii ugu horeysay. halkan waxaan yidhaahdaa calaamadda x ayuu ku sameynayaa ama laba xadhig oo isweydaarsan. saas isweydaarsanyiin. halkana laba xadhig oo isberber yaalla ay ka noqonayaan. kan hoose markaad ka hoosta ka geshid, kan ayaad kusoo jiidaysaa dunta, kadib saasaad u wareejinaysaa. eeg dunta markaad saas u wareejisid, halkan ayaad kasoo jiidaysaa si uu kaaga guntumo ama uu kuugu xidhmo. marka aad halkan ka gumdid xadhiga ama saas kaaga noqoto oo aad ka geejisid, irbadda waxay kuu samaysmatay hal goobo. halkaa goobo markay ku samaysmatay, waxaad sameynaysaa labada gacmood labada farood aan ka wada cafwan, waxaad ku geejinaysaa halkii guntiimada ahayd si aanu shaqadu dee yacni aanay kolba kaaga carcararin. tan kalena waxaad ku dheereynaysaa xadhiga si uu xadhiga kuugu wareejisnaado isaguna aad soo jiidanaysid ama aad soo qabanaysid kolba. marka waxaad sameynaysaa saas iyadoo ah, halkaasaad kasoo gelaysaa xadhiga, saasaad ugu soo laabaysaa irbadda halkii uu markii hore ku jirta. irbaddu halkan ku jirtaa, xadhigan saas ugu soo laabaynaa, waan soo jiidaynaa, waan kasoo dhex saaraynaa goobadii. saas waxaa ku samaysmatay silsiladii koobaad. haddana waad ku celinaysaa, waad kasoo dhex saaraysaa silsiladii labaad, silsiladii saddexaad, silsiladii afraad, tii shanaad, tii lixaad, 7 8 9 10. u fiirso, markasta oo aan shaqeynayo labadeeda farood waxay geejinayaan xadhiga, fartaydaasina waxay geejinaysaa xadhiga kale aan soo jiidanayo. labadan waxay geejinayaan shaqada aan sii dhameynayo. markastaba way isdaba socdaan, gacantaydan iyo gacantaydan way isla socdaan. mid kale haddana marka saas oo kale. imika tan waa waadix baan u maleynayaa, waad arkaysaan inay silsilad tahay, wayna idiin muuqataa mid kastaaba inay leedahay laba xaraf ama waxaan ka wadaa laba, yacni laba dhinac ay leedahay. waxaan u maleynayaa inay clear tahay. dhinac waa kaas, imika silsiladaasi, tani waa silsilad, tani waa silsilad, tani waa silsilad. markaa silsiladaasi dhinacaas iyo dhinacaas, tani dhinacaas mid walba laba dhinac bay leedahay. silsiladda markaas iyada saasaa loo sameeyaa haddii alla idmo. waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala qof kasta oo jecel inuu dee yacni hadda imika haddii ay u suurta gasho uu practical gareyn karo. haddii aanay wax waadix ahi uu jiro yacni aanu fahmin uu ila soo socodsiyo insha allahu tacaala si aan ugu soo celiyo. laakiin waxaan rajeynayaa inay easy tahay, sidaan idinku sharxayna ay aada u fududahay. sidaa iyo insha allahu tacaala qursada labaad ee ku xigta insha allah aan idiin soo dhigi doono. intaa aan soo duuba insha allah aada iyo aad baan idinku rajeynayaa khayr.
تمام sidaas waxaan ku dhameynay casharkii ahaa sida aad dunta u xidhi kartid marka ugu horeysa iyo qursada ugu horeysa ee la dhaho silsilada sida u sameyn kartid marka insha allahu taala waxaan rajeynaya inuu waadix ahayd casharku aada u fududaa ayadun fahanteen qof kastaana uu imika awoodaya inuu bilaabo qursadan ku bilaabo runtii qursadan waxa weeyaan qursada asaaska u ah ama dee yani saldhigga u ah shaqada dhan ee dhigaysan ee crochet-ga waxyaabo badanna lagu sameyn karo marka qofku haddii uu tan barto kuwa kalena way u fududaanayaan waana ta ugu fudud runtii waxaan jecelahay markaas inuu qof kastaaba dee bal isku dayo sameynteeda insha allah haddii ay jirto waxaad fahmi weyday ama waxaad u baahantahay inaan ku celiyana diyaar baan ahay waad ila soo xidhiidhi doontaan intaan videoga kala soo gelinayana waxaan idin rajeynayaa kheyr badan sidoo kale kusoo biira channelkayga subscribe gareeya gambaleelkana shido si uu kusoo gaadho insha allah videoga xiga aad iyo aad baan idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh